أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الفعل والقول والهدى والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. اللهم استخدمنا لدينك ولا تبدلنا واجعلنا للمتقين إماما. إله خالقه هدي وقلاده وحان كقد قلنا هل كان كتابك لغو مقعابه فضائح الوهابية. فضائح الوهابية سيدا ضردي ساما غلافك سكموغتا كتابك وحا اسكد بردي خير الله كوابالي الشيخ الليرا الشيخ فتحي المصري الأزهري. مقع كتابك سيدا كموغتا وكتاب النقضاء أما قسم مهم في الدين كؤادا أما الله سوى قاضي sida laga wada warqabo laga dharigsan yahay diintan islaamkuna ay aad iyo aad u saacido bal lagu tilmaamay dulucdeedo dhan waxa ay tahay an-nasiihadu sida laga warqabo waa ambiyada ilaahay oo dhan xikmadii loo soo diray waxyaabaha asaasiyaadka oo masaalixda ah dadka in loo gudbiyo oo loo sheego haddii ay tahay wixii anfici lahaa in lagu dhiirigeliyo haddii ay tahay wixii dhibi lahaa in looga digo waa noqdada ilaahay mursaliintiisa uu isu soo daba dhigay waaxidan bacda waaxidin oo mid walba uu lahaa wa ana ansaxu lakum wa nasaxtu lakum walaakin laa tuxibuuna annaasixiin. diinteenna islaamku gaar ahaana nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi addiinu nasiixa. diintu islaamku waa naseexa, waa khayri meerid, waa maslaxa iyo dux buuxda oo dhammaystiran. qolo walba maslaxa iyo wanaag ayay diinta islaamka u tahay. qofka ilaahay khayr darro uu ugu talagalay uun mooyee waxaa aad iyo aad looga dheragsan yahay diintan islaamku inay mar walbaba iska lahayd kifaax iyo difaac codeed iyo mid cududeed labadaba. diinta islaamka marka in lagu difaaco cod lagu difaaco oo maalan loogu difaaco in la bayaaniyo waxyaabaha xaqaa'iqa oo jira dadka muslimiinta ahay si aanay ogaal la'aan ugu halaagsamin waxyaabo fara badan oo khadar ku ah waa dariiq nabigu uu asteeyay qur'aankuna uu bayaaniyey waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr ilahi waatuu lahaa ha laydinka helo oo ha idinka mid noqoto dad ummadda wanaagga iyo fiicnaanta ugu yeera waxa wanaagga aan ahayna uga diga. marar badan ayuu qur'aanka ilaahay ku soo qaaday waxaa la yidhaahdo al-amru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkar. nabiguna calayhi salaatu wasalaam sidaas si la-eg ayuu u bayaaniyey ilaa uu axaadiidka qaar nabigu dhaar iyo wacad ku maro wanaagga iyo fiicnaanta wallaahi waad faraysaan oo waad sheegaysaan waxa munkarkaana waad ka digaysaan oo waad ka istaagaysaan haddaydnaan yeelinna ilaahay wuxuu idinku abaalinahayaa dad aan idin torin inuu gudihiinna ka soo saaro oo dhib iyo shiddo iyo rafaad fara badan aad dugsataan. kitaabkani marka wuxuu u qoran yahay qaybahaas ka mid ah bal weliba la dhihi karo waqtigeennan hadda ahamiya xaaliya waxay iska leedahay muhiimad xaali ah. hadda xilligan la joogo muhiimaddii hore u lahayd mid ka baaxad weyn qayb iska leh. qaybtaasi waxay tahay sheekhu inuu isku dubariday ama isku aadiyey xarakada hadda magaca la baxday alwahaabiya loona yaqaano isuna taqaan. mararka qaar waa laga yaabaa qaar ka mida inay xoogaa ka biyo diidaan ama ay dafiraan laakiin insha allahu mas'uuliyinka iyagu ay qorteen oo raggooda waaweyn ay qoraan ayaan ku wada arki doonaa in ay magacaas ogol yihiin isu nisbeeyaan kuna faanaan. xarakada waxaa loo nisbeeyaa nin la yidhaahdo maxamed ibn cabdilwahaab. ninkaas oo taariikhda islaamka waxa uu kusoo biiriyey ay yihiin wax aad u xanuun badan dhaqankiisiina uu yahay dhaqan dadkii nabigu uu ka digay calayhi salaatu wasalaam asal ahaan dhaqankoodii oo la soo minguuriyey. dhaqankaasina ma uusan noqon dhaqan si kama dambaysa u tirtirmay ee marba cirkaas ayuu isku shareeraa. ilaahay addoommo ayuu ku salladaa xoogaa waa shiiqaa waa dabcaa mana baaba'o dib dambe ayuu haddana usoo abaabulmaa isagoo in ka daran waqtiyada ka mida uu soo muuqdaa. haddana sidoo kale ilaahay fadligiisa iyo minnadiisa asagaa ilaahay ugu talagalay caalamkan in khayr darro iyo shari uun inaysan iska seeraarinoo mar walba waxa socda aysan noqonina mar walba ilaahay dadka ahlu sharka ahlu khayr ayuu ku salladaa oo ku difaacaa
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض إلهي واتولها هذه dadka qaybahooda ashraarta ilaahay qaybo akhyaara oo ku difaaco adduunka aysan jiri lahayn hadda ardadu ma jirteen oo fasaad ayaa camiib lahaa gidigeed markasta marka bifadlilaahi ilaahay diintan cinaayada uu ugu talagalay iyo xifdiga uu u ballan qaaday dad ayuun baa la tacaalahaya oo ilaahay uu ku sharfaa diinta islaamka difaaceeda haddii cod ay u baahan tahay iyo haddii cudud military ay u baahan tahay iyo haddii calaf ay u baahan tahay dad ayuu ilaahay u diyaariyo ku ilhaamiyay khalaqa Allahu min shaa'ira wa tuulaha khalaqa Allahu lil hurubi rijalan wa rijalan liqas'atin wa tharidin ilaahay dagaalka rag ayuu u sameeyo oo abuuray ragna waxa loo abuuray xarada iyo raashinka ragna ilaahay wuxuu u diyaariyay inay saaxadka dagaalka inay tagaan oo ay qayb mugla ka qaataan oo dadnimo iyo sharafkooda soo bandhigaan dadna inay maarata sidii waan baraaraho meel lagu korinayo kale inay waxun iska cunaan oo cunida raashinkay aad ugu qurxoon yihiin qaabna ku leeyihiin laakiin qiimo kale ma lahan diintan marka mar walba ilaahay wuxuu u diyaariyay rijaal ka fikirta ku sharfan ayaguna diinta islaamka sharaf iyo qiimo iyo maamuus weyn u soo hooyay runtii waxa la dhihi karaa hawshan ragga qabtay waa ragga noocaas ay kamid yihiin waxa ay soo bandhigeen wax sida magacaba ka muuqata fadeexad ah qofka muslimka agtiisa iska dhaafa xitaa insaaniyada wax agtiisa fadeexad ku ah in badan oo kamidana waxa laga yaabaa ma ahane waxa la anfariiro aad loola xanuunsado in ay yihiin qofka muslimka ilaa goob joog uu noqdo qoraalkoodana waxa laga yaabaa inaanu ku qanci karin ama qaada karin dadka lagu eedeynayo ayaga laftoodu waxa la qira karo ama la qaada karo inaanay ahayn way dareensan yihiin marna badan waxay isku dayaan inay dafiraan ama diidaan laakiin lillahi alhamdu wal minna raga ilaahay diinkiisa u guntado rabbi ku sharfay ayay guryahoodii iyo golayaalkoodii ka soo qaaday ama ka soo naqilo ka soo guuriyay gacantooda waxa ayagu ay ku qorteen oo fadeexa iyo falxumo aad loola anfariira ah washahidu khayru dalilin waxa hadda anaga noo muuqdo aan dul taaganahay ama aan ognahay arkaynana marxaati iyagaaba noogu filan wax fara badan oo ragga mashaayikhda oo quruntii hore tood qarnigaas waliba xarakada xooggeeda uu ku aadanaa mashaayikhdii ku aadanad waxa ay soo xiganayaan oo runtii qof muslima inuu qaato si sahlan uu qaato aysan marnaba fududeyn ayadoo mashaayikhda aan la tuhmaysaneyn oo aan la islahayn waxaan jirin ay sheegayaan haddana waxa ay yihiin falxumada xaddiga ka gaarsiisan yihiin oo aqliga bani aadamka uu muuqaalaysa kara ama uu si sahlan u qaada karo ma ayaan laakiin ilaahay mahadiis wax allaalaya wixii raggii culimada raggaas ay soo guuriyeen oo anagu aan aad ula yaabi jiray markii waaqicii waqtigu anaga uu nabaray oo arinta noocaas ay dhacday in wadankanagii ay soo gaartay oo awood iyo cudud military la yeeshay oo tabtii xadwa nacli maashi raggii hore to jaanta ay dhigeen ma ashbaha albariha billayl hadda ka hor in laga sheegay caawa maxaa xalay u kaan badiyay atawaaso bihi galada ilaahay markuu hadlayna waa tuulaha dhaqan xumadooda qaybihii hore qaybaha dambe sida ay ugu jaango'an yihiin atawaaso bihi oo ma isu dardaarmeen arrimahaas foosha xun loo ay ku kacayaan abuyaalow qolo waxay ka dhaxashay oo ay kala ballantay miya waxaan dul istaagnay oo la arkay oo la wada ogyahay oo qof qaarkeena ay maaratay ficlan u arkeen qaarkeena ay dhagaha ay ka waraabeen waxyaabo fara badan oo aad iyo aad looga naxo aad u xanuun badan oo qof muslima in loo nisbeeyo ama lagu maleeyo aad culays ay u tahay waliba la ogyahay ma yukhfihi naasu akbar waxa dadku ay qarinayaan inay ka xoog ama ka culays badan yihiin waxana soo gaaray ama laga warqabo waxa si sahlan nooga daadiga oo si sahlan aan u qaadanay taariikhdii salafkooda rijaashii goobjooga u ahaa waxay ka soo xiganayeen kitaabkan marka khayr allah siya sheekhu waxa uu qoray looguna tala galay dhabnimo ma ahan dad maarata shakhsiyadooda in lagu xadgudbo mana ahan in baxsi ama maarata farabaxsi loo yahay dana ay adduunyo daraadooda dad in farabaxsi loogu yahay ma ahan oo xamla iyo weerar in la iska qaado oo in la danaynayo bitahqiiqi waa qoraal dukumiinti iska leh ma ahan wax mala awaal iyo sheeka barleeya waa qoraal insha Allah maraajicdiisa dhammaan la dul istaagayo la arki doono qoraalkaasi marka qof walba muslima waxa muhiim ah oo ay dhici karto codka inuu gaaro in ay si daqiiqa wala la xisaabtami doona nolosha nolola ka dambaysa aqli iyo garashada la siiyay qaabka uu uga faa'iisto waa la weydii doona qofku inuu xornimo garasho yeesho waa laga maarmaan cidna inuu soo taxaabnayn aqli iyo maskaxda uu leeyahay inuu dib uga faa'iideysto oo ku fiiriyo wixii loogu tala galay qoraalka marka meesha ku yaala qof walba muslima waxa laga maarmaana inuu u qaato xaqiiqo jirta oo waaqic run ah oo la soo gudbiyay inuu yahay
waaqicaas qofka muslimka wuxuu uga egna asaga laga rabaa go'aan qaadadkiisa in uu go'aan ku qaato wadiiqa iyo qaabkii arrinta noocaasa asaga uu uga badbaadi lahaa dadkiisa iyo ehelkiisana uu ugu gunta lahaa sida uga badbaadi lahaa ugu dambeyn guud ahaan caalamul islaam sida uu lug ugu yeelan lahaa ama qayb uga qaadan lahaa aragtida noocaas oo halista sidii uu uga zuuli lahaa ama uga baabi'i lahaa uga la diri lahaa marar badan waxaa dhacda dadka waxa aan fiicnayn faraha kula jira ama dunuubta galay runtii mar haddii ay bani aadam garashale ay yihiin ma jecla amana ku farxayaan falxuma iyo ceebahooda in la sheego kuma farxayaan waana wax dabiici oo la yaqaano laakiin runtii waxa muhiim ah wax qaab daran oo aan fiicnayn mar haddii yihiin meeshii qofku asagoo ku dhagan oo dhaqan uu yahay dhibsa lahaa in la tilmaamo ama warkiisa la soo qaado waxa aad ugu fiican wuxuu mar haddii falxumaba ay yihiin qofku inaanu ku habisnaanin khaladkaas dib uu uga soo laabto faraha uu ka qaado waxaan fiicnayn laakiin marna dhici mayso qofku dhaqan aan fiicnayn inta uu qaato inuu u fadhiyo ama uu raboodo in la amaano dad badan yaa laga yaabaa markii hadda mawduuca kitaabkan uu ka hadlayo la soo qaado inay yiraahdaan waa la caytamayo dad la caayay hadda dadku haddii ay caayan yihiin in la caayo wax diinta islaamka qayb ka ah ilaahay baa looga dayanaya jalla wa ala ilaahay quraankiisa dad ayuu dhaliilo shakhsiyadooda waliba uu dhacay وليد بن المغيرة وذكتين القرآن كأنت لبصوا قاضوا أنت دليل يسود بدقي فلا تدع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم إلى قدام بين الشخصيات دي سيئة قابك أو كعر القلا إلى حتى دليش يسيل جارسي إلهي وتلمامه هي مركب وحال ليه بلسان الله أرنت أسوق كلام وحال ليه إلهي وعيتم يا ليه صح ما أهن qofku hadii uu caayan yahay in waaqiiciisa la tilmaamo oo la cabiro ma ahan ay qofkaasi waxa lagu tilmaami karo ma ahan waa qof sheegay xaqiiqada iyo waaqica shay wixii uu ahaa hadii qofku ay dhacdo marka waxaan fiicnayn inuu faraha kula jiro meeshii uu bedelan uu jeclaalaha inaan warkiisa la soo qaadin oo sidii qof amaano kala madaxa loogu salaaxo waxa aad uga fiican xaqiiqada runta inuu san ka gudbino wax khayaaliyo uu san weheshane inuu ka xoroobo waxaas dhaliisha uu ku leeyahay haddii aanu yeelin marna ma dhici karto in laga ilaabo ama laga aamuso qof inuu maaratay saxara ku soo dhaashado xaar is soo marmariyo haddana uu fadhiyo in la yiraahdo waa carfaysaa wax qariib ah haddii qofku ay dhacdo inuu saxara is soo mariyo lama dhihi karo waa carfaysaa waaqica qofka ka tan badan waxa marsana khasbaya haddii qofku xataa uu mar uu ka xisho yiraahdo isku celiyo mar la isku celiyo marka dambe isagoo ufle waa la arkaya shakalaan sababtoo waxa meesha yaala sida ah marka qof inuu inta saxara isku soo dhaasho soo mariyo inuu yiraahdo waa carfay hal yiraahdo taasi waa wahabiya noqonaya waxna yaan la iga sheegin mana loo fadhiyo taas qofna aysan ku riyoonin qof walba marka waxaan ugu naseexaynaynaa kan ah oo hadda dareenka noocaas xitaa qaatay shaqaawo azaliya qofkii ay u sabqisay oo marnaba ilaahay uusan ugu talagelin inuu khayr qaato kaas hadda waqti waxaan ku bixinayno ma ay ahan isagana insha Allah kitaabkan wuxuu ku tari doonaa in uu ogaado waxa uu ku sugan yahay diin inaysan shaqo ku lahayn dadka islaamka oo kalena waxa laga maarmaana si daqiiqa kitaabka intay u fiiriyaan nimankaasi waxa islaamka ay ku soo biiriyeen waa la yaqaan wax qarsoon ma ahan qoraalkooda ka muuqata afcaashooda ka muuqata hadda qofna inuusan naftiisa dadnimadiisa iyo dayaanadiisa inaan meel uu og yahay in ay geynayso masiir mugdi ah inaanu naftiisa ku qancin iyo ehelkiisaba in ay ku xiraadaan oo arday ay u noqdaan wahabiya caalamka markii ku soo biirtay waxa laga dhaxlay taariikhda waa ay ku qoran tahay weligood inay ahaayeen dad safaaxiin oo dhigi cabi ah oo aad iyo aad islaamka u xasuuqa haatana waaba goobjoog waxa loo yahay oo laga warqabo islaamka qaabka ay la dhaqmeen meel alla meeshii jaanis ay u helaan kitaabku marka khayr Allah siiyo sheekhu wuxuu u qoray ama u diyaariyay qaabka noocaas waxaana u soo qaadi doonaa ilaa 107 fadeexo yaan filahayaa inuu soo qaadi doono oo midba mid kale ay ka culus tahay marka kadib haddana waxa uu sheekhu ku dadaalay khayr Allah ku abaaliyo fikriga noocaas ma ahan fikri qof muslim ah oo ku qanci karo ama qaada karo bandhig ayuu sameeyay iyo isbarbardhig fikrigaasi asal ahaan cidda uu ka soo fulay inay tahay yahuud waxa uu soo bandhigi doonaa aragtida wahabiya ay qabaan oo qoran oo dukumeenti ah ayagu ay qorteen oo aysan marna dafiri karin oo buugtada guriga u taala laga helayo aragtidaas masaa'ilka aqadiga ah waliba halista ah iyo yahuudda haddeertan joogta oo tawreedka muharrafka haysato oo kitaabka ilaahay ka dhigaysa ilaahna uu tilmaamay annahum katabu biaydihim gacmahooda inay ku qoraan kitaabka ilaahay ka guureen waxa ku yaala iyo wahabiya buugtada waxa ku yaala markii haddana la isbarbar dhigo waxa qof walba oo muslima u dareemi doonaa xarakadaasi xaraka yahuud wakiilka inay tahay
حذو النعل تاك عكت أي صارين وهابيه وح يهود توراة كم حرف كقرن ويأمسين عقيدة وحاس كله ذا لفته ذا أما معناه هذا أما حتى حروفتي كلمات كي معظم كذا أي يوم عقيدة كده جانا يكسر قرن ماشي دوان الأوجي هاي فكرة ليرة هذا فكر الزيغ في العقيدة أصل كذا وح إسكالها ويهود عدي مركا أنت نوع عاصة كوسي فودنا قرآن كبس إذا إلهي وكو إشاري وضد يهود دبقلي فكرة داني مركا فكرة الإسلام إن أنا يهين فكرة كسو جدة أيتهاي إسلام كدتك علاقة وجبا وقبا حركة أنا اللي ودي يريد دتك إسلام سمعة ديسة سمعة دولا إن الدون كلجا يصير جويو سيدو كلاته دتك إسلام كوحترك إن اللي ودي يريد حركة سين أي شرقال يا مقالبة أي أبا بيسو وقدام بينسي أي أباقي النقدان أما الله هلا والعياذ بالله ما ندعي دونت إلهي إذن كيسه سي الله هلا ضد حركات كاس عبري جودا أما الطريق جودا ديار وجوه قال لما يدين الآن ولن دت كذا إن احترامان ومدح الروحان هذا بس هذا موقته إلهي إذن كيس مركا أنت أسقف كمسلم كمركو إسلامكم مبادئ أيوة قبينا أقريد وعشان دفيري كرنا بوقت ده لقيس جورنا هي إيوه مبادئ دي أسلك كذا يهود نما كل يرا واحد بوقت ده كقرنا ما كلا يسبر برضي قال قالوا إني أرضية مشايخ ذو يهين قفوا لي بوا ديجا مركز لقى ربنا إن تقان قاتو هذه دنا يكوت هاي اليهود الحاقدة إن أرضي إنه قطوا عواقب كماشة وكوجينها هي أنا دكت هاي يهدي أجوان كاجو يهبا إناد إلى هي سيد يهود يا نصارى وكتل ما ميت بعض وذا إناد تذكر حساب تنتأت كحرودو الله ما أسقان قات كذا أجيب كويا